agaasimaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Maxamed Salaad ayaa tan iyo markii loo magacaabay xilka NISA waday qorshe ku aadan sidii magaca loogu bedeli lahaa hay'adda NISA ayadoo la leeyahay qorshahan uu wado agaasimaha uu yahay mid uu la ogyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Ujeedada arrintan ayaa mid daba socoto in isbedel guud lagu sameeyo dhammaan hay'adaha dawladda oo kooxda xilligan hoggaanka haysay aaminsan yihiin inay ku milmeen siyaasadda xilliga xukunka madaxweynaha hore Farmaajo xilka hayay. waxaana si weyn isha loogu wada hayaa isbedelka hay'adda NISA oo ay aaminsan yihiin inay ahayd meel si weyn danan gaar ah loogu fushan jiray. magaca cusub ee hay'addan ayaa la qorsheynayaa inuu noqdo Federal Intelligence and Security Agency ama hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka federaalka. waxaana hay'adda sirdoonka la aasaasay 8 Janaayo sanadkii 1970 waxaana markaas magaceedu ahaa hay'adda nabad sugidda qaranka ama National Security Service. waxaana magacaas lagu bedelay NISA oo loo bixiyay bishii Janaayo sanadkii 2013 xilligaas oo hoggaanka dalka hayay isla madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markaas dib loo aasaasay. magaca bedelka hay'addan ayaa waxa ansixin doono oo la horgeyn doona golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo codka kalsoonida u qaadi doono si ay u dhaqan gasho magaca bedelka hay'addan ugu saameynta badan Soomaaliya xilligan. dhanka kale madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden iyo xaaskiisa Jill ayaa booqday magaalada Ulford ee gobolka Texas si ay xanuunka ula qaybsan lahaayeen xigtada iyo dadkii ka badbaaday toogashada wadareedkii u dambeysay ee dalka Mareykanka ka dhacday. dhacdadaasi oo toddobaadkii hore ka dhacday ayaa waxa ku dhintay ugu badnaan 19 caruur ah oo iskooley ah iyo 2 macallin. madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden iyo xaaskiisa ayaa socod ku agmaray oo waxay lagu maamuusayay dhibanayaasha meel ka baxsan dugsiga hoose ee Roob ayagoo marar joogsanayay si ay u taabtaan sawirada 21 dhibane ee meesha ku dhagnaa magacyadooda ay aqrinayeen. xilli madaxweyne Biden iyo xaaskiisa ay tacsidaasi qudbeynayeen ayaa waxa wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ay shaaca ka rogtay in codsi ugu yimid duqa magaalada Oxford ay dib u eegis ku sameyn doonaan sidii booliiska ugu jawaabay dhacdadii talaadadii iskuulka ka dhacday. wasaaradda ayaa sheegtay in la eegi doono darsiga laga bartay iyo sida ugu wanaagsan ee dadka gurmadka loogu diyaarin karo sida ay ugu jawaabi lahaayeen markii qof hub wata uu weerar soo qaado. weerarkii Texas ka dhacay saraakiisha booliiska ayaa aad isku weydiiyay waxa uu keenay in hal saac wax ka badan ay ku qaadato in ninkii hubaysanaa ay ka hortagaan. madaxweynaha iyo xaaskiisa ayaa dhowr saacadood ku qaatay magaaladan yar ee dhinaca koonfur bari ku taalo ayagoo la hadlayay kuwa u weerarku sida ugu daran ee saameeyay weerarkaasoo uu geystay wiil 18 jir ah. Biden ayaa sidoo kale ka qayb galay duco ka dhacday kaniisadda madhabka Kataloodiga isagoo sidoo kale la kulmay dadkii gurmadka ka qayb qaatay. dowladda Israa'iil ayaa muwaadiniinteeda ugu digtay inay u safraan Turkiga ayadoo sabab ugu dhigtay hanjabaadda Iiraan ee ah inay u argudi doonto dilkii toddobaadkii hore loo geystay korneelkii ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan. Tehran ayaa ku eedeysay Israa'iil dilka Xasan Sayid kaasoo 2 qof oo wata mooto ay ku toogteen isagoo ku jira gaarigiisa. golaha amniga qaranka Israa'iil ayaa bayaan uu maanta soo saaray ku sheegay in Tehran laga yaabo inay raadinayso inay waxyeelo u geysato Israa'iiliyiinta ku sugan Turkiga oo ay ku milmeen dal Qatar sare leh. Turkiga ayaa meel ay dalxiis u tagaan Israa'iiliyiinta kadib markii ay hagaajiyeen xiriirkoodii kadib in ka badan 10 sano oo xiriirkoodu ahaa mid aad u xumaaday.